السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين سلامي أخيارتك كحران يوتيوب مع العقال ومقال كلا أحسله وقصة بصن لبصر أو امتحان كقرن كا عهد الله إنه قل وجارك دونتد. حنقولنا إن وقت امتحان كسول وادي أو عرض السديدات كها يكون فور كها لبدي بقى يجليان امتحان كوقت جودي لو يجليان امتحان كي إن بدل ما نقصه هذا المركب قابك وحلا آخرية سيدا وحلا يلو يوتيوب كده قشيد وحياة بدن وفر بدن بعد أركيسا سيمينار بدن أيها لقى قبتها حليقان قل السيد أرض وكوباسي لها لبعتني تضوضا بشان أيام في ليا دو إلهي مو إن فونفور كامتحان كسلا فريسان دونه لكن واحد أوقاتها لبعتني تضوضا بشا إن تهدو إلهي نكون نغنو تمالين فرحاد له أو إن شاء الله تعالى مستقبل كاغا بوس في عن أما تاريخ في عن كجل دون تدو له هيدمو ما أنت كل وذاك ما هي مركا مقال كان كم صعب سنة سدي امتحانك أتكو قش لهيد قش لكن واحد قش كأجلو سيدو كلا كم صعب سنة سيدا امتحانك وديارين لهيد سيدو كلا كم صعب سنة وحيابا أنت بدنا لهذا الهايو لقش كي ليراد أرض ساس امتحانك وقران ساس هيلان سيدو كلا كم صعب سنة قرشية امتحانك وديج لهيد هو واحد كسته hadda isku soo dhamaadeen horta ugu horreyn marka hore waxaan rabaa labadan sir intaan ku sheegin in marka hore aad noqotid arday niyadiisu ay dhisan tahay arday walwalka iyo walbahaarka haya uu ka yar yahay maxaa la yiraahdaa xadka ay ardaydu gaarsiiyaan walbahaarka sababta waxa weeye boqolkiiba 82 ama 83 ardayda Soomaaliyeed ilaa 2015 imtixaanka inta la qaadayay way baasayeen marka maxaa adiga 82 kugu dari weynahaya oo aad isku daraysaa 10 dhowrka qof boqolkiiba dhacda sanad kasta marka waxaan rajaynayaa in cadaadiskaas aad iska yareysid labada sir haduu ilaahaydmo sirtooda waxa weeye oo rabaa inaan ku sheego umaleeyma in hadda korna cidna kula wadaagtay laakiin sir aad iyo aad u muhiim ah sirtooda waxa weeye sidee ku xalin kartaa هذا سؤالها قارئ قوم ويد أوكي سيدا كو حلين كرتا هذا سؤالها قوم ويد سؤالها مركب حلقية امتحانك وكردوين وحدعي كرتا سؤال شو انتهي جواب جلي وحدعي كرتا انتهي سؤال توسع وحدعي كرتا انتهي true or false انت صدق واحد صورة تقلا مركب وحنرب انهم كلوا ذاقو تاتيكوين اي صورة تقلتهاي ان اتجوابتكو هليشد هدي أي سؤال شو أي نقطة مد آذن قرنين طبعا سرتان أن كل وذاك هي أما برامج كان أردنا نقول شيء وحنكها اللي سيف أنا إفهم تفليا قفكو مركو سؤال وجرن وايو كما هلا يقف سؤال جرن وايو قف سؤال وحوجا فاهم سنيهين طبعا كما هلا يو قف دو سؤال جرن وايو طبعا وقرنيا ونكتشوابيا سيدا aad ogtihiin markasta la idin kula taliyana qofku waxa fiican inuu marka hore ka jawaabo su'aalaha inta uu yaqaan oo fudud inuu soo ka jawaabo kadibna ay u soo haraan waqti fiican soo haysta su'aalaha uu san garanayn waayay marka sidee ayaad ku xalin kartaa hadii aad su'aal gooba galiya aad aqoon weydid A J B E C E D ka kooban tahay laakiin ma garanaysid mid saxda ah okay waxaan sameeynaa marka dhowr haba mareynaa habka horta si degan su'aasha oo akhri ardayda boqolkiiba 60 iyo wax ka badan waxa su'aalaha A B C D da qaladka ku keena waxa kamid ah ardayga ayaa isagoo si fiican su'aasha u akhrinin oo isagoo degan u akhrinin ayuu wuxuu sameynayaa ayuu hore mid ka dooranaya waxa laga yaabaa markuu fast line oo hore markuu soo akhriyaba inuu sida su'aashan waa su'aasha taqaanay dag oo hore ka doorto marka saas sameeyay horta su'aasha si degan oo maskaxdu ay nadiif tahay oo aan imtixaan ka baqayn oo walwalka isku haysan horta si degan u akhri qofka markaa sameeysid wax ka soo bixi waayaan qofka labaad sameeyna wuxuu noqonayaa سؤال شو حكوا بنتا A E B E C E D سماه أفر قيبض قار ماش كسر
qaar meesha ka saar oo tusaale ahaan hadii la yiraahdo madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya wuxuu ahaa Cabdirashiid Sharmaake aadan cadde xasan sheekh maxamuud farmaajo oo kale tusaale ahaan waa fahmaysaa in labadan dambe aysan ka mid ahayn madaxweynayaashii hore marka A e B e C e D markay yihiin ta su'aasha si fiican u fiirisid labada aad isleedahay qodobkan laba wax ku jira maahan labada rabaad ama A ahaat ama B ahaat ama C ahaat ama D laba ka mid ah waxa la yiraahdaa elimination soo yareynaysa su'aasha ayaad focuskeeda soo yareynaysa laba ka mid ayaa ka saaraysa meesha oo aad leedahay meeshaan da u fiirsaday labadan qodob ma soo gali karaan waa qodob kale oo muhiim ah asna ku dooran karto tusaale marka kala yareysid waxa ku soo baxaya laba mid ka mid ah marka labadaas waa sahlan tahay inaad haleeshid mid saxda ah waayahay waxaad kala samayn kartaa inaad iska ilaalisid erayada soo socda qodaan ku sheegayo erayada waxa kamid ah jumladaha ay ku jiraan not ayaa kamid ah sometimes ayaa kamid ah always ayaa kamid ah never ayaa kamid ah su'aalaha erayada noocaas ah jumladaha ay ku jiraan statementiga dhan ayay bedelayaan marka iska ilaali hadii meesha not ku jirto sometimes ku jirto always ku jirto never ku jirto waa inaad su'aalahaasna aad si fiican iskaga fiirisaa waayahay waxa kale oo samayn kartaa hadii ay ku jirto hadana all above hadii ay leedahay sentence A B C D waxa kamid ah all above ayaa kamid ah ama waxa kamid ah none of them hadii aad su'aasha markaad akhrisid all of them ay ku jirto goorma ayaa all of them dooranaysaa waxa all of them dooranaysaa markii su'aasha afar ka koobnayd laba kamid ah ay sax yihiin midna aad garan laadahay ku celiyo meeshaas inaad si fiican fahantaan filaya A iyo B jumlada kale laga hadlayo labaduba waa ku jiraan laakiin C ma garanaysid inay ku jirto D na waxa kugu qoran all the above markaas waxaad haboon inaad dooratid all the above none of them aku soo hartay ama none marka qaar none aad soo qara ama none of them none ama none of them waxaad dooranaysaa markii aad laba kamid ah A iyo B iyo C aad istiraahdid kamid maahan jumladan kor ku xusan ama statementigan su'aashan hore oo qeexaysa A iyo B gan kamid maahan marka istiraahdid C laakiin aad garatid inay kamid tahay laba mid ayaad garatay inaysan kamid ahayn tan daba marka ayada ku gowracaysa marka ayana none of them ayaa dooranaysa hadii marka waxa ku soo hartay waxaas dhan aysan ahayn oo aad garan waayo all of them maahan none of them maahan maxaa la yiraahdaa ay sheegeen kala saaridiina oo keen waay wax meel u dhaqaajiya male waxa lagu la talinayaa inaad si dooratid A iyo B iyo C Soomaa inaad si dooratay lagu la talinayaa waa gartay marka intaas waxa iga haysaa oo gobogleedi sidee ku xalin kartaa hadii su'aashu ay su'aal toos tahay oo aad garan weysid horta su'aasha tooska inta ka jawaabin number 1 waxa laga rabaa inaad si tiyaadayo kale si degan oo nadiif ah oo pressure-ka cadaadiska waxa iska yareeyay inaad si degan aad u akhriso su'aasha okay su'aasha markaad garan weydid oo si degan u akhrisay qodobka labaad waxa samaynaysaa su'aashan wax aad ku xasuusan kartid ama garan kartaa waxa laga yaabaa markii hore casharka akhrineysay ina dad maadooyin isla akhrineyseen ama mar macalinku muraajacinahay ama mar meelo laga yaabo inay xog xasuus ku yeelato marka su'aashan wax aad ku soo xasuusatid aad ma garan kartaa waxa ku soo xasuustay raadi okay taasna waa lagu waayay waxa ku soo xasuustay waxa samaynaysaa su'aashan waa ka gudbaysaa su'aalo kale ayaa ka soo shaqeynaysa waxyaabo kale ayaa soo qabanaysa waxa laga wadaa maskaxda ayaa dib chance ugu siinaysa inay su'aashan ay garato markaad dhowr su'aalood wax ka soo jawaabtid oo aad soo laabtid ayaa isku dayaysaa hadana bal inaad su'aashii aad garatid ayana waa kugu soo dhicweed xalka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa inaadan ka tagin meesha oo banaan oo tusaale ahaan haddii oxygen lagu weydiiyey
oxygen aad garan weysaa ku qeexdid laakiin carbon aad taqaanid qeexitaan carbonka meesha geli waxa laga yaabaa in iyadoo la buusinayo saxitaanka meesha dhibac iska heshay ama waxa laga yaabaa in qofku is yiraahdo macalinku is yiraahdo ninkan wax u boqorey meesha 3 dhibcood ahayd hal dhibac la sii marka taasna waa mid kale oo aad ku sixi kartid su'aalaha tooska su'aalaha waxa ku saaray sax iyo qaladka marka fiirisid hadii statementiga marka akhrisid qoraalka su'aasha A iyo B sax iyo qalad ka hor akhrisid hadii aysan ku jirin waxyaabaha negative-ka not iyo never iyo waxa aysan ku jirin su'aashan aad garan weydid su'aasha waxa u baahan tahay inaad tahay su'aal sax laakiin hadii not aragtid ama never ku aragtid ama waxyaabaha noocaas su'aalaha noocaas warta su'aashan aad garan weydid su'aasha waxa u baahan tahay inaad tahay su'aal qalad ah sirta labaad hore Ramaadu Ilaahay minaakan kula wadaago sirta labaad Ramaadu Ilaahay minaakan kula wadaago waxay noqonaysaa ma ogtahay in aad Google-ka aad su'aalo maxaa la yiraahdaa multiple choice ah ama jawaabta saxda dooro aad ka sii heli kartid ayadoo imtixaanka la gaarin tusaale ahaan maxaad sameynaysaa Google ayaa soo kicinaysaa waxaad ku qoraysaa cutub ayaad ugu qoraysaa maadooyinka aad rabto hadii Ilaahay inaad gashid tusaale ahaan waxaa leedahay MCQ oo ah multiple choice questions oo soo gaabshay kadibna cutubka aad rabtid ayaad ku qoraysaa oo tusaale ahaan waxaad ku qoraysaa oscillatory motion ayaa la physics-ka oscillatory motion ayaa ku qoraysaa kadib wuxuu ku siinayaa intaas oo Google oo oscillatory motion ka diyaariyay su'aalo multiple choice ah multiple choice kaas fahan guud ayuu ku siin doonaa Ilaahay markaas chapter-kaas fiirisid then MCQ waxa la yiraahdaa wave ayaa la yiraahdaa tusaale ahaan wave ayaa la yiraahdaa waa midka ku xiga wave ayaa qoraysa kadib MCQ wave marka tiraadid hada tusaale ahaan ani waxa soo baxay su'aalo badan ma helaysaa waxyaabo badan oo waxa helaysaa oo maskaxdaada sii furfuraya maskaxdaada okay how many degrees of freedom gas wakaas wuxuu soo bandhigayaa iyagoo badan aad arkaysaa hadii Ilaahay ma oo ku saabsan A iyo B C wixii muhiim ah ka tagaysaa wixii muhiimana waa sii fiirinaysaa oo waxaad ka heli doontaa inaad fikrad guud imtixaanka ka sii qaadatid waxaan filayaa inaan muuqaalkan wax badan ka faa'iiday waan islaamahayaa fadlan muuqaalka like noo saar haddaan ugu cusubtaan subscribe aad baa mahadsantihiin